Tell your mother about your worst day. All my days was messed up. Well, tell her about one. When I got beat with a cast iron skillet because I kept asking for something to eat. And then after that, for like a week, they put me on one slice of bread every morning and every night. السلام عليكم walaalayaal wiilkaas waxa la dhahaa Michael waa wiil Mareykan ah oo ku soo koray foster care system-ka oo inta soo guri ma aragtay marba mid loo wareejinayay meel marka guriga wuxuu ka sheekeynayaa in inta soo dhibaato loogu geystay kaligiisna ma aha 5 ilmood ayay ahaayeen isaga waa mataan gabara ku mantaansan iyo muxuu ahaa kuwa kale 4 kale 5taas ilmood waxa dhashay islaantan oo drug addict ahayd oo ma arkino drugada addiction ku qabtay iyadoo yar ayay ma aragtay cunug ugu horeeyay waxay dhashay 16 sano iyadoo jirto ka kale 17 sano iyadoo jirto gabadha kale 18 iyadoo jirto labadan mataanahana 19 iyadoo jirtay dhashay labadana ugu yar wiilkan hadda Michael ka hadlay ugu yar gabadhaas ugu weyn marka ilmahaanay marba guriga la geyn jiray guri bay ka sheekeeyeen yacni in waad hadda la weydiinay your worst day noo sheeg in ma aragtay madaxa looga garaaci jiray digsiyo looga garaaci jiray digsiga daboolkiisa waxaas loo magac looga garaaci jiray in hadda cudurkan ma aragtay uu ku dhacay wiilka suuxdimo uu ku dhacay uu suuxo maskaxdiisa ay khalkhalan tahay damage-ka hooyadiisa ayaa la soo horfariisay uga sheekeynaya 20 sano kadib hooyadana waxay ahayd hooyo ma aragtay ilmahan ay she was not capable marka iyadii markii loo sheegay oo hin way qaracantay waxaan may ogeyn waxay isdhaysay systemkan ilmahaaga way qaadeen way meel fiican ay ku geyn doonaan laakiin marka ta ugu daran waxay ahayd wiilkan markuu hadlayo wuxuu dhahay waxayna dhihi jireen uu yiri ninna loo geeyay mid kamid ah sanad kasta ma ogtay waa la cusboonaysiyaa foster care guriga inay sii joogayaan in laga kaxeynayo marka mid kamid ah wuxuu yiri gurigana la geeyay mid kamid ah ayaa wuxuu dhahay aniga walaasha iskora isfuula ma aragtay iskora ana idin daawanaaye dad saas u xanuunsan ah ilmaha loo geeyaa ilmihii waxa way baqadin protection ma haystaan xataa dawladdu uma sheegi karaan waa ilmo waxay iska noqonayaan ma arkin aad u cabsi badan marka walaalayaal aad ha looga fiirsado gabdhaha Soomaaliyeed laba markay isku dhacaan kuwa ilmaha qaata isugu yeeraan ka waantooba arintaanay ka waantooba systemka iyo foster care-ka ilmo gaala qaato wax lagu farxa ma aha